أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق. ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي. مصحفك maxaa laga yeelaa haddii uu duugoobo Soomaaliya bismillaah mصحفka haddii uu duugoobo iyo haddii markaas looga baqo inuu waxyaalo kale ka yimaadaan oo macnaha gaalo uu gacan gelaa iyo waxyaalahaas oo kaleeto adigu say rabtaa ha noqotee fi saxiix al-Bukhaari رحمه الله تعالى وحا كعب عثمان بن عفان رضي الله عنه باب جمع القرآن لنا دور قروس ومر جمع القرآن حلق عثمان رضي الله عنه وحا أتمد عبشاء رلكي دولانكو قال هذا أي دقنيت مسلمين تمركي دولامين تدول الحكومة موقت أدو حاتمد اسخلاف marka ragii saxaabada ridwaanullah alayhim mid kamid ah yimiday wuxuu yimiday khalifa الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه marka wuxuu yiri umada ka gaarowri in khilaaf aw ka dhaxorto dhibaato keenaysa jirta markaas saxaabada ridwaanullah alayhim quraankiya ay xafideen wixii markaas ay gaareen أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحسته قرآن كمركا مدول با حبوا حفظ سنة حدنا وحي مركز منسوخ أهاي إيه وحن منسوخ هاي مكلا شاندس يعني وحي اللي جوجي عمل فالكوض والنبي عليه الصلاة والسلام العرضة الأخيرة بندقي أو قدام بي أو جبريل عليه السلام أو بندقي هيا وحو أها midka ugu dambeeyay oo wixii la joojiyay iyo wixii howlgelayaba lagu kala shaandheeyay ay noqotay marka Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hawshi markay soo gaartay wuxuu sameeyay quraanka inuu ururiyo hal misxaf uu ku ururiyo hal misxaf macnaha hal uu ku diyaariyay oo nusqa asal ah wixii ka soo haray nusqadaas waxau amray in la gubo nusqadaas oo quraanka ku aruuriyay wixii ka soo haray in la gubo ayuu amray في صحيح البخاري halkaas ka reeyay baabu fadaa'il al-Qur'an baabu jam'i al-Qur'an waliba jam'u al-Qur'an ta'lif al-Qur'an anwaanadaas marka quraanka haduu sidaa noqdo in aan lagu intifaacayn ay dhacdo sunnadu sidaas waay alaykum sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin hadii quraankii oo qoran meeshaas mulaxadada aan ka rabo waxa waay quraankii oo sidaa u qoran مسائل أما دور آيات كلمات لا سو خلاف أي يمادين أي أرنتو نقطي إن لغو إجماعي إن لغوبه سي أمدا مدن مدينة لو بدبادي لا دي أمد ولو كتاب قبصته أنا مسعى قفت نوكتا وحي مدن ماشا سوح قصافير ساكن وحو أقرأ وحكد وانو أقرأ عزومة هلا اسكو دعا سيدا اسمركا حديك مصحف كله قبي si loo ilaaliyo ummada midnimadeeda maanta meeqa kutubul firaq ah oo taala kutubul rudud kutubul firaq meeqa taalo hadii ummada in la miday ay noqoto in ayaga la guban maahine yaa si kale aan lagu miday kar taasna waa mulaahada jirta kullee waxay u baahan tahay qolo walba qolada kale ay waxayda gubay moogta yaa awood marka maartay intaba ka sareysa هذا كله وعيران أضيء لما حاسوق ومركب من تنتد وعداته وكله واجبوده من وعدل يروا يبدالك وين وملاها يتلوين هنا كلهين سو ما قرن
marka maanta miduu ku ag hergelayo haddii tinta caddeed ay leedahay wixii madoobo dhan ay eberka dhigeen intuu yugoorba u sheekayso ayuu ka sadiibay midda kalena maalinta kale ula jooga tinteeda wixii ka duwan idun ka sadiibay xaa soo baxay adoogiyoon hal tina lahayn adoo kale waa iska misaalan umaleeya laakiin haddii aad wax iska soo horjeeda ku dhex jirto yaa hada ragga qaar inay yaqaaniinaan umaleeya odayaalka qaarkood marka haddii qolaba timaadee marka iyadu xoogga leedaha ay tuurto yaa intay nacabtay suuqa ka sifay qolada kalena markay timaado ayadana ka sifay leeda birigaygii waa maxaa soo heraaya marka sidii adooga tin beeloo kale yaa allay waa jiraysaa waa diintan alla ilaaliya moogtaha tintaan sahla ma ilaali yaa laakiin diinta alla ilaaliya innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun daa'ifa almansuurane waa iyaduna way jiraya fahmigii alla ku ilaaliya taas marka in la gubo ayaa saas ay sunno u tahay dadka haddii qaar waxaad arkaysaa in laga badiyo uun xoogaa ixtiraamkii qur'aanka ayuu marka iyadoo la gubaayaba arki ma karin qaarkood waxaad arkay in soo xaafadaha ka keenaan iyo dugsiyada amahan la soo dhigayo sheekh waa kan umaad aad uu soo ururiyay masjidkaas amuu rabiyaa nadaafo ma ilmahana ku dheela anigu intaankii haddaan la akhrisayn wixii la akhrisaayo dheef lahaa maaha la soo saaraa marka waa la gubaa daliilkeedana waa kaas kitaabkeedana waa kaas